gobolada anoo ku hadlayo waa mahadsantaa fursaddan wanaagsan aan nasiisay haddaan idinkaga hadlo hadal badan meeshaan kuma soo istaagin xaaladda guud ee tamarta dalka waa la socotiin inay korontada ay aad noogu yartahay baahidana ay sii kordhayso markii la qiyaasay korontada waddanka aan haysano waxaa lagu qiyaasay 15% inay korontada helayaan dalkoo dhan inay 15% u helayaan sidaas waxaa dareemaynaa baahi badan in loo qabo korontada dalka waxaan mahad ballaaran inta uga soo jeedinaa private sector-ka oo ilaa haddeertaan juhdi badan geliyey 30 sano waad ogtiin burbur badan na qabsaday maanta intaan baa aykaan soo gaarsiiyay aadayna u mahadsan yihiin concern badan ay muujinayaan walwal badan ay muujinayaan ay leeyihiin waxaan u malaynaynaa in lala wareegi doono dowladda iyo investorka dibadda ka imaanaya ma dhacayso mana dhici doonto investor dibadda ka imaado inuu la wareego mana idinka tegayno waana ognahay wanaagga iyo waxa aan noo tartay shacbigana waa ogyihiin marka concernkaas badan waxaan rajaynayaa inaad maskaxdiina ka bixisiin idinkaana hordabna hogaamisiin وانا ضد ولا بارتنر نقلنا ولا شقينايو محمد waa ku soo celcelisay maxamed saadar konsenkaas badan maskaxdeena ka bixiya waan ognahay waxa shacbiga u qabateen shacbiga ay u haysiin meel cidna qof idinka tagay malaha idinkaana hogaaminayseen hoggaanka ma aha in anaka idin kala wareegayno just waxaana waa ilid garaynayna maadaama anaka aan dawladda nahay taas ka sako maanta waxaan isugu nimid siyaasadda tamarka inaan input badan qof kasta oo dawlad goboleedka ka mid ah ama private sector-ka inay inputkooda nasiyaan oo la geliyo buuggan hadda annaka aan haysano kolley waa idin qaybin doonaa waa siyaasadda tamarta ma dhamaystirna maanta waxaan isugu nimid oo 4 beri aan maanta aad u joog maanta ka bilaabato in qof kasta ra'yigiisa uu dhiibto aan qorno kadibna dood kadib in wixii soo baxa ayna la wadaagna annaka hadda markii shirkan uu noo gabagaboobo waa isku haraynaa ilaa galabta gurub u fariisanaynaa gurubkaas waxaa ka soo bixi doona ra'yi badan oo annaka maanta naga maqan oo private sector ka maqan oo ra'yi badan aan isku dari doono dawlad goboleedka annaka iyo private-ka shacbiga civil society-ga ummadoo dhan beri sidaas oo kale sidaas oo kale afartaas maalmood waxaan rajaynaynaa wax fiican inuu naga soo baxo aruurinta aan soo aruurino dib aan ula laabanaynaa kadibna markaan wixii dhan aruurino hal maraan soo qoraynaa soo qoritaankaas wixii naga soo baxay dib aan hadda idinku soo laabanaynaa idiin soo bandhigaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa shirkan oo wada tashiga ah talooyinkiina fikradihiina baahida deegaano kasta uu qabo dokumentigan in oo idin hor yaala inaad ku dartiin waa siyaasadda qaranka dalka oo dhan ma ahan dawlad goboleed gooni ah ma ahan meel gooni waa siyaasadda dalka oo dhan oo annagoo dhan mas-uuliyadda ayna saaran tahay taas waxay ahayd inaan idiin sheego shirkan maanta sababtaa intuu u nimid inuu wada tashi yahay wada tashigaasna qof kasta oo Soomaali ah xaq u leeyahay inuu wada tashi ka dhiibto oo ra'yigiisa oo nasiyo ra'yigiisna aan ku darno aan qaadano ra'yigiisa ma aan ra'yi kaliya annaka aan wadana hadii kale go'aan gooni aan annaka gaarnay naqan lahayn wasaaradda awood u leedahay go'aan iska gaarto ma gaarin idinka idin la tashanay haddana waxaan bilaabnay inaan dawlad goboleedka maadaama markasta ay nagu eedeeyaan xukuumadda nalama tashato wada tashigii maanta u bilaawday cabdicasiis lafta garee madaxweynaheena iftiin noo soo baxay waaye asaa fursadaan na sii waxaan rajaynaynaa dawlad goboleed kasta inaan geyno sharci kasta ama wada tashi kaleesto inaan dawlad goboleed kasta aan la tashano aysan naqan wax annaka ugu kooban hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynaa siyaasadda qaranka waxaan rabnaa in loo dhammaado qof kasta uu tala ka wada geysto aysan ahayn siyaasad kaliya dawladda ay wadato waxaan rajaynaa tala fiican inuu naga soo baxo taladaasna idinla wadaagi doono hadduu ilaahay yidhaahdo wax qayr badanaan rajaynaynaa marka hadalkayga meeshaan kusoo gabagabaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo haddana waxaan kusoo dhaweynaa guddoomiyaha baarlamaanka